waa mahadsantaha cabdullaahi waxaan salaamayaa runtii dadka soomaaliyeed meelay joogaanba ee daawanaya telefishinka universal marka koowaad waxaa weeye waxaad nagu tilmaantay dad ka soo horjeeda mooshinkii laga keenay guddoomiyaha inagu kamaana soo horjeedin mooshinka kamaana soo horjeedin waana la aqbalay mooshinka inkastoo ciladihiisa uu lahaa guddoomiyaha golaha shacabkuna waa aqbalay laakiin waxaan diidaneen waxay ahayd in sharciga iyo dastuurka iyo wixii lagu heshiiyey xeeroosaadka golaha shacabka u yaalla in la hareer maro si hareer marsanna in iyo xoog inta la isku dayo in gacan iyo lug inta loo taago halkaasay baasha ka dhacaan oo guddoomiyihiisi sharci darraa lagu rido dalkuna uu galo fawdo iyo xaalad xun taas ayay ahayd waxaan anagu ka soo horjeednay laakiin moshinku waa qodob ku qoran dastuurka wuxuu kaloo ku qoran yahay xeeroosaadka baarlamaanka waa la keeni karaa waana aaladda runtii waana eedayn loo jeedin karo madaxda markaas baarlamaanka accountableka ama baarlamaanku la xisaabtami karo marka guddoomiyaha shacabka waan aqbalnay mooshinkiisii laakiin habraacii iyo hanaankii loo marayay ayay ahayd waxaan ka soo horjeedna waxaana difaacayn sharciga iyo dastuurka dalka oo dadkoo dhan ka dhexeeya oon ahayn maalinkaan rabana sidaan raba aan u adeegsado sidaan raba aan u fasirto hadday ii soortoobi weydana aan xoog kale aan ku dayo taaseed waxaan ka soo horjeedna laakiin waxaan ognahay in qof kastoo xil loo dhiibaa inuu xilka uga tegi karo inuu dhinto inuu asagu istiqaaladoo ka tago in maaragta laga qaado waxaasoo dhami waxay ku qoran yihiin dastuurkay ku qoran yihiin cid kastoo xil loo dhiibo ama wasiir ahaato ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne way ugu qorantaha ama inuu xilkiisii gudan waayo waxaasoo dhami waa wax dastuuri ah marka qodobadaas dastuuriga ah mid ka mid ah dadkaas mas-uuliyiintahay waa ay ku dhaqmi karaan waxaana isleenahay midda hadda jirtahay kama duwana middaasi laakiin waxaad moodaa in loo yeelay guddoomiyihii gobolka banaadir baa xilkii ka tegey waxaa ka tegey wasiiraha ka tegey xilalkoodii iska casilay kama duwana madaxweyneyaal soomaaliya ay lahaan jirtay ayaa xilalkii maalin cad ka tegey ra-iisul wasaareyaal baa iscasilay marka waxaasoo dhami waxay ahaayeen dariiqa la yaqaanay oo dowladnimadu barbaarinta dowladnimada ama siyaasadda soomaaliya wixii yani dariiqay soo maraysay ahayd laakiin waxaa ku soo kordhay dowladda soomaaliya waxaa ku soo kordhay in xoog iyo sharci burbursan in la isku dayo in la hirgeliyo taas ahayd wixii la hortaagnaa muddada 25 casha laakiin guddoomiyuhu hadday ka timaada isaga khayaarkiisa wuu iscasili karaa wuxuuna iscasilaadiisa ku horsheegi karaa ma ahan xaafadaha iyo warqado la qoray iyo xaafiisyada gudahoodee wuxuu ka horsheegayaa meeshii lagu doortay oo ahaa golaha shacabka hortiisa ayuu ka sheegayaa markaasaan annagu waxaan aaminaynaa in guddoomiye iscasilay in kale laakiin waxa kaloo hadda shakiga kaaga jiray silsiladiisa shakiga ma jiro laakiin sida sharciga ahi sidaas weeye marka waxaan sugaynaa degdegi mayno waxaan sugaynaa waxaa laga yaabaa soo jeedin xaaladdu meesha marayso markuu guddoomiyuhu arkay oo qiimeeyey baarlamaankii loogu talagalay inuu sharciga ilaaliyo in gudihiisii sharciga lagu jebinayo markuu arkay dee waa nin odayahe dalkan iyo meeshuu u socdo iyo xaaladiisa markuu qiimeeyey inuu go-aan ka gaaray baa laga yaabaa oo asagu maaragtay soo jeedintiisa go-aan ka gaaray laakiin ka hor dhici mayno waxay imaanaysaa middaasi marka baarlamaanka la shiriyo ugu sokaysa oo isbuucan gudihiisa ama isbuuca soo socdaa halkaas ayaan guddoomiyaha ka sugi doonaa afkiisa waxa uu ka sheegto laakiin qolalka dhexdooda iyo meelaha maaragtay waxa lagu sheego ilaa iyo laakiin xildhibaan axmed ahaan adigu go-aanka guddoomiyaha ma ahayd ra'yiga aad jeclayd ama aragtida aad jeclayd ama ficilka aad jeclayd in la sameeyo aniga waxa la leeyahay maslaxadda Soomaaliya ay ku jirto maslaxadda dawladnimadu ay ku jirto maslaxadda wadajirka hay'adaha iyo muassasaadka dawladdu ay ku jirto waxba kama qabo runtii waxaan u dirirayeen aan u soconay annaga iyo kutlooyinkii badbaadada baarlamaanka la baxay waxay ahaayeen in la isku soo dhawaado guddiga wada hadalkan ka mid ahaa oo dhexdhexaadinta isku dayay meesha kaliya oo la isaga dayay wax la dhexdhexaadiyana waxay ahaayeen kutlada badbaadinta baarlamaanka kutlada la baxday guddi 7 saaranay madaxweynaha la kulanay madaxweynuhu wuxuu doortay waxaan niri laba midood ha lagu kala baxo ama dastuurka iyo xeerka soo qoraya ha lagu kala baxo ama xal siyaasi ah la gaaro madaxweynuhu dastuurkii iyo xeerkii wuxuu yiri bal iyu kaadiye waxaan ku kala baxay waxaan dooranayaa xulka ah in lagu kala baxo si siyaasi ah tii marka wada hadal dheer baa la galay oo guddiga iyo madaxweynaha tiimkiisa waxaa kaloo la galay xalay ayana guddoomiyihii is arkeen runtii arrintii hadda way soo dhawaatay waxay faraj ayay yeelatay laakiin maxay ku timid qanaacada tiimamkii la safnaa oo badbaadada baarlamaanka qanaacadooda iyo qanaacada guddoomiyaha wuxuu ku qanacsan yahay ku timid arrintii qoorqabadna ma ahayn
dee wax sharci daraana baarlamaankeenniina runtii waxaan aaminsanahay inuu badbaaday in dadkoo dhanna wada guulaysteen oo cid hadda guul daraysataa inay jirin dalka soomaaliya inuu guulaystay aadayna xaggiina inkugu qaraareed inaad aqbashaan go-aankan daban annagu mar walba waxaan jeclayn maadaama golaha sharci dejinta sharci dejin uu yahay golahan ka tirsannahay golaha shacabku in sharcigii la dejiyey inaan hay-adaha kale lagu dabaqo maahane marka u horeysa kabatolaha kabihiisa la fiiriyaaye in ay ka soo bilaabato golaha shacabka laftiisu inuu wuxuu degsaday iyo wixii dalka u deganaa in lagu dabaqo annaga wuxuu ahaa midka aan jecelnahay midaasu ah laakiin iyadana in xal siyaasiya la gaaro oo si kale loo xaliyana lafteedana yani kama soo horjeednay waan ku faraxsanna waay dabcan goluhu way kala qaybsanaayeen sidaad og tahay waktigana qaadatay khilaafka golahaasoo kala dhex galay ma is leedahay iscasilaada guddoomiye jawaari way midayn doontaa golaha shacabka guud ahaan aniga waxaan aaminsanahay horta dadka soomaaliyeed waxyaalo badan baa isaga qaldan kala aragti duwanaansho ayaa jirtay khilaaf ma jirin kala aragti duwanaansho ayaa jirtay koox ka mid ah kooxaha baarlamaanka xildhibaanadiisa oo xukuumaddu gadaal ka riixayso ayaa keenay mooshinkii hadda u dambeeyey mooshinkii wuxuu maray meelo badan oo qardajeexa waa socon waayey xildhibaanadii waa daaleen ciidamo waa la adeegsaday qaab kale oo sharci daraa waa la isku dayay in la adeegsado wixii oo dhan waa socon waayeen wixii oo dhan waa socon waayeen annagu mar walbaba sharciga qofku markuu ku dhagan yahay ma daalo annagu waxaan ogolnahay sharcigan inaan ilaalino waxaana u assign garaysanna xildhibaanka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo kulli waxay ku dhaarteen in ilaalinta sharciga dalka danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo ilaalinta sharciga iyo dastuurka iyo shuruucda u degan dalka ayaa lagu dhaartaa ka daalimayna marka waa mid aan u dhaaranay laakiin waxaan aaminsanahay in xildhibaanadu kala aragti duwanaanshahoodii inay iska soo gabagaboobayso mar haddii wixii yani dhinac ka mid uu tanaasul ogolaaday oo tanaasulay weliba u tanaasulay dalka iyo dadke marka xildhibaanadu way midoobayaan xildhibaanadii hadda mooshinka wadana dee waa dad kolliigeenna ah oo walaalaheena runtii waxaan isleeyahay aragtida meeshaas la gaartay intii hadda mooshinka lagu jiray xildhibaano badan baa ka soo noqday oo aragtidoodii ka soo noqday markay arkeen dariiqa qardajeexa oo wax ku rabaan qaar badan oo ka midana kuma qanacsaneen meesha wax loo wado iska soo horjeedana waxaa laga yaabaa qaarkood inay berri israacaan oo isku dhinacaan waa kugu soo laaban doonaa xildhibaan axmed macalin fiqi waxaan eegayaa markaan oon sii doonaa qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo iyana ka hadlay iscasilaada guddoomiyaha golaha shacabka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed ayaan halkan run ahaantii ugu hambalyaynayaa geesinimada iyo maxaan idhaahdaa leadershipka uu tusiyey guddoomiye jawaari waxaan leenahay mahadsanid taariikhda waxaad u gelaysaa nin odaya Soomaali ah odaygaas oo run ahaantii muujiyey waqti ay dhibaatooyin siyaasadeed waddanka ay ka jiraan in uu to overcome isla mar ahaantaasina uu si sharaf leh qiimo leh uu meesha ugu tegey annagana waxaan rajaynaynaa in maanta wixii ka dambeeya wakhtiga badan ee ummadda Soomaaliyeed uu ka lumay in aan dib loo eegin arrinta dhacday arrin waxay ahayd process uu siyaasadeed oo waddanka inuu marana ay tahay mar waliba uuna mari doono tan iyo in ka badanna aan arki doonno maalmaha soo socda iyo sanadaha soo socdo marka ummadda Soomaaliyeed waxaan niyaddooda ku dejinayaa oo aan leeyahay waa jidkii dimuqraadiyadda aan fuulnay dimuqraadiyaddana waxay leedahay jidka noocaan oo kale ah cod baa lagu kala baxaa dastuur baan haysanaa waxaa jira procedure la maraa jira procedure-kana wuu culays badan yahay wuu xanuun badan yahay laakiin mararka qaar waa jidka loo baahan yahay in la maraa waxa weeyaan ogaada isjijiidka iyo arrinta dhacday 3 Sitmaan ee la soo dhaafay waxay mar kale test ku tahay imtixaan annaga aan qaadanay ay tahay in marnaba aynan u laabanayn meeshaan joognay waxa weyn ummadda Soomaaliyeed hambaliyaan leeyahay guddoomiye jawaari hambaliyaan leeyahay baarlamaanka Soomaaliya hambaliyaan leeyahay waxa weyn procedure-kii sida loo rabay ayaa loo maray geesinimada guddoomiyahana waan ugu hambaliyaynaynaa waxaan leenahay guddoomiye oday Soomaaliyeed oo ugu dhaxnool noqo insha Allah taala qaybtaadana ka dhisidda iyo soo celinta dawladnimada Soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa inaan u cadeeyo maanta baarlamaanka waxay ku ballansanaayeen kulankoodii caadiga ahaa ee la rabay in lagu doodo ajandaha mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka waxaa laga yaabaa dad badan inay qalad u fahamsan yihiin markii la yidhaaho xildhibaano ayaa mooshin keenay una malaynayaan mooshinka inuu yahay shay wax lagu duminaayo laakiin waxaan rabaa inaan xoogaa aan fahamsiiyo mooshinka waa aaladdu ay isticmaalaan xildhibaanada
haddii aan af soomaali fudud ku sheegana waa soo jeedin ee mar waliba xildhibaanada ay rabaan inay soo jeediyaan baarlamaanka markay rabaan inay wax ku saxaan. haddaba soo jeedinta laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka ee ku saabsanayd in uu xilka isaga tago eedeyn badanna lagu soo eedeeyey runtii waxay kala qaybisay xildhibaanada baarlamaanka oo aragtiyo kala gedisan ku kala qaatay muddo ku dhowaad 3 isbuucna hawsha baarlamaanka u xayrneed arrintaasi sida loo dhammayn lahaa. alxamdulilah maanta ayay soo gabagabowday oo gudoomiyaha si dimuqraadi ah uu isku casilay oo xilkana kaga tegey. runtii waa wax aan ugu mahad celinayo gudoomiye Jawaari go'aankii dimuqraadiyadda uu qaatay si nabadgelyo ah inuu xilka mar kale ooga tegey. waa laga yaabaa waxyaabo badan oo qaladaada inay dhaceen oo kulankan kii ku horeeyay oo kale laakiin alxamdulilah maanta ayuu si nabadgelyo ah gudoomiyaha iscasilaadiisii ku aqbalay markii uu meelo badan ka qiimeeyay. arrintaasna waxaan dhihi karnaa waa go'aan runtii siyaasi oday Soomaaliyeed uu qaatay kuna qaatay markuu fiiriyay danaha dadka iyo dalka sida ay ku jirtaba. marka waa ugu hambalyeynaa wuuna ku mahadsan yahay mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad. dadkana waxaan rabnaa inaan intaas u xaqiijino arrinta socotayna inay ahayd arrin dimuqraadiyad oo qof waliba aragtidiisa uu ku dhiibanayo xildhibaanada si peaceful ahna hadda lagu gabagabeeyay. waayahay xubno ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayay kuwaasi ahaayeen. dabcan xildhibaanaduna iscasilaadda ayay soo dhoweeyeen gaar ahaan labadii dhinac ee uu goluhu u kala qaybsamay inkastoo dariiqyadii iyo hanaankii kala duwanaa ee lasoo marayay ay isku khilaafsan yihiin. dabcan waxay ahaataba gudoomiyihii ugu dambeyn go'aan oo qaatay iscasilaadda gudoomiyaha kadib inkastoo la filayo Arbacada inuu si rasmi ah golaha wartago oo ku dhawaaqo maxay tahay tilaabooyinka xiga xildhibaan Axmed Macalin? horta intaadan Cabdullaahi oo taas la gelin ka hor tilaabooyinka waan sheegaynaa haddii la yiraahdo yani xildhibaanadii shalay eedeynayay ayaa hadda dhahaya khabiir weeye waa waayo arag waa geesi waa oday Soomaaliyeed waa xagga waa hooga yani waxaan xasuusanaa xalay in lagu daabulay saqdi dhexe in lagu daabulay baawur askara iyagoo fuushan in lagu daabulay golaha shacabka in lagu daabulay anaga hayna cadeynteeda isug in xildhibaanadii kale oo difaaci lahaa dastuurka iyo xeerkana in la yiri inta warqado loo dhiibay askarihii in la yiri ma soo gali karaan meesha marka inay de kaligood iska tuntaan durbaanka runtii de waa ayaan daraday ka mid tahay haddana ay yiraahdaan dadka Soomaaliyeed waaba u bariyay waa uma bariyin dadka Soomaaliyeed waaba ka baryay waaba mugdiyaha u dhashay mar haddii dastuurkii iyo xeerkii haddii xeerkii la diidan yahay lagu dhaqmo waa xun ayaa u baryay waxaan leenahay waagu wuxuu baryayaa marka la ogolaado sharciga iyo dastuurka in lagu kala baxo taas marka xagga soo taasi ma muujinayso inaadan weli aqbalsanayn oo ku qanacsanayn iscasilaadii maya waxaan ka hadlayaa yani habdhaqankii u dambeeyaan ka hadlay aniga tan kale mowqifkayga deewaan cadeeyay midda ah su'aasha kadib taas kadib xagee la aadaya waxay la tahay de gudoomiyaha markaan xaqiiqsano inuu iscasilay oo baarlamaanka golaha shacabka hortiisa uu ka sheegay arrintaas qaab de la maraa jirta markuu iscasilo de waa la soo dhaweynayaa iscasilaadii in golaha shacabka uu soo dhaweeyo ama maaragtay inuu diido lafteeda waa leedahay markaas kadib de in 15 casho gudahood goluhu ku yeesho gudoomiye maaragtay gudoomiye cusub guddi doorasho la sameeyo process sax la maro gudoomiye ku-xigeenka koowaad uu sii hogaamiyo baarlamaanka asagoo la tashanayo gudoomiye ku-xigeenka labaad sidii hadda dee qardajeexayd oo kusimaha uu gudoomiyuhu sheeganayay waxaasoo dhan marka gudoomiyuhu iscasila kadib bay imaan kartaa oo si saxa markaasay u dhaqangelaysaa laakiin wixii hadda lasoo dhaafay oo kusime iyo maaragtay arrintaas dee qardajeexa waxay ahayd halkaasay ila ahayd marka waxaan isleeyahay 15 casho kadib maalinka uu gudoomiyuhu ku dhawaaqo inuu iscasilay markaan afkiisa ka maqalno ayay ka bilaabanaysaa markaasna 15 casho gudahood baa la rabaa in lagu soo doorto gudoomiye cusub iyadoo la marayo hanaankii loo mari jiray gudoomiyaasha kuna qoran xeer hoosaadka iyo dastuurka dalka Soomaaliya walwal miyaad ka qabtaan cidda noqon doonta gudoomiyaha soo socda maya walwal kama qabno xildhibaanadu si dimuqraadi ay u dooran doonaan dabcan way jiri doontaa dee ujeedkii Jawaari loo haystay wuxuu ahaa odaygaas waayo aragga dowladnimada aadka u yaqaana khibradda leh yani yaqaana khaladaadka dowladnimada la gelayo aadka u fahansan يعني waxyaalo badan ka badbaadiyay dalka oo arintii qalbi dhagax ay kamid ahayd arintii dib wala ay kamid ahayd u dambeysay yani waa la xukuumaddu way jeclaan kartaa inay gudoomiye
keensatay iyadu way jeclaan kartaa laakiin codka annagaa leh marka wax badan waxaan hadda ka sii digaynaa inaan lacagta qaranka iyo maaragtay hantida qaranka inaan loo adeegsan guddoomiyaha hadda jawaari markii la dooranayay yacni guddoonku wuxuu ahaa meesha keliya oo nadiif ah oo aan hal kumi lagu bixin waayo waa profession waa xirfad wey marka inaan lagu kabin inaan hantida qaranka la adeegsan oo si nabadgelyo ay u dhacdo inaan ciidamadii hadda maaragtay aan arkayno kale inaysan wadooyinka xirin oo xildhibaanka la isleeyahay codka ma siinayo guddoomiyaha xukuumaddu wadato inaan sidii oo kale dee loo caburin in inta u dhaxaysa 15kaas casho baarlamaanka si saxa loo hogaamiyo oo guddoomiyaha jawaari muxuu ahaa muudey gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo muudey iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad mahad cawad inay u hogaamiyaan inaysan faction iyo qayb isku arkine inay baarlamaankii oo midaysan oo ay xil ka saaran yihiin inay sidaas u gudoomiyaan dabcan intii ay hawshan socotay ilaa xad ma hayno innaga xildhibaan laga celiyey oo loo diiday inuu golihii galo haddii aan intaa kasoo gudubno doorashada guddoomiyahana dabcan soo socda haddii uu si rasmi u dhammaystiro iscasilaadiisa guddoomiyaha dee qofka yimaadaa wuxuu ahaadaba waxay noqon doontaa dhaxal adinku aad meeshii aad keenteen oo codkiina aad ku siiseen haddii ugu dambeyn haddii uu jawaari shaqadii ka tegey ma tahay dhammaadkii khilaafka hoggaanka dowladda taas annaga nooma taallo annaga xildhibaanaan nahay xildhibaanaduna waxay leeyihiin shaqo saddex shaqaa u weyn shaqooyinkooda xildhibaanada waad la socotaa waana lagu soo celceliyey annagoo kor joogtayn iyo matalaad shacabkii lasoo doortay iyo sharci dejin saddexdaas shaqaan leenna marka waxaan rajaynayaa in saddexdaas shaqo inaan la carqaladayn doonin in madaxda ay dhexdooda ka wada shaqayso oo dastuurka ku wada shaqaysana waxaa kala xadaynaya waxay tahay waa dastuurka iyo xeerarka iyo shuruucda dalka u yaalla ayaa kala xadaynaya laakiin midda aan loo heli doonin loo maara heli doonin waxay tahay marka la isku dayo in dastuurka iyo sharciga inta meel la iska dhigo yacni xoog iyo qajajac iyo ababa kale in wax lagu meel marsado laakiin dastuurka ayaa kala xadaynaya hay-adaha dowladda waa 3 hay-adood hay-adda garsoorka hay-adda sharci dejinta iyo hay-adda maaragtay fulinta saddexdaas hay-adood madaxweynuhuna waxaa la rabaa inuu udub dhexaadka intaas u dhaxeeya wada shaqayntoodii ilaalinaya ilaaliyaha sharcigu waa isaga marka waxaan rajaynaynaa in madaxweynuhuna sidii hadda crisiskii iyo dhibaatooyinkii lasoo gudbay sidii loola dhaqmay si ka duwan in mararka soo socda loo dhaqmi doono runtii meesha qaladku ka jirana waa la ogaan doonaa marka u dambeyso soomaalidu waxaa weeye crisis dhowraha lasoo maray inta dowladdani jirtay oo gobolladii baa mar lagu duulay madaxweynayaashooda in la rido qaar waa lagu guulaystay qaar waa lagu guuldaraystay guddoomiyihii gobolka banaadir baa yimid haddana maaragtay lagu soo jeestay haddana guddoomiyihii golaha shacabka marka wada shaqaynta waxaa laga raba waxay tahay in xukuumaddu ay xasilooni abuurto inay xukuumaddu xasilooni iyo kalsoonidii baarlamaanka waa la siiyey 230 xildhibaan 31 xildhibaan baa gacanta u taagtay xukuumadda hadda jirta waxaa la rabaa wixii xuduudeeda inay ka shaqayso oo aysan mar walbaba xuduudaha hay-adaha kale aysan hawaysan inay soo gasho laakiin adigoo xildhibaanada kamid a qudhaada ilaa xukuumaddii lasoo magacaababa dhaliil iyo waxaad ku waday dabcan inaad eedeyn u jeediso oo ay yareedba inaad ammaanteeda sheegto marka soo qudhaadu ma habboonaan lahayn in aad bal dowladnimadii la qaqabato doorkaagin aad qaadato halkii dhaliisha iyo niyajabka aad mar kasta ku samayn lahayd anigu horta uma samaysniba yani ma ihi yani wasiirka warfaafinta xukuumadda ma ihi ilmaha yararkaa iyo social media ka shaqeeyana ma ihi xildhibaan baan ahay u dhaartay inuu dalkan danihiisa ka shaqeeyo xukuumaddu hadda go-aanay gaartay go-aanadii hadda arrintii imaaraadka iyo carabta iyo ayaantii criskii waan ku taageer laakiin kumaana taageeri karin in qalbi dhagax la dhiibo kumaana taageeri karin in maamul goboleedyada lagu duulo kumaana taageeri karin in cabdiraxmaan cabdishakuur gurigiisa la weeraro ama senator cabdi qaybdiin la weeraro ama guddoomiye jawaari la aado waxaas hadda wax taageeraa oo aan ku siin karna ma jirin laakiin waxyaalaha ay ku wanaagsan yihiin xukuumaddu ay ku mashquulsan yihiin wanaagay oo dhan fi itaar alqaanuunka xuduudiisa iyo xindaabkiisa ayaan maaragtay ku ammaanaynaa kuna taageersannahay laakiin waxaa la rabaa xukuumaddu inay buruuf garaysa iyadu inay soomaaliya u shaqaynaysa inaysan shaqooyin kale oo gaara inaysan hayn